waxaan codsanayaa inaan u yeero isaga lagu yeerto halkaan waxaa khudbadaha bartikool ahaan noo soo xiri doono wakiil ay soo dirsata safaaradda jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya ee ku leedahay dalkan Faransiiska isaga ayaa ka codsanayaa inay soo dhaweyso una yeerto immigration ka safaaradda Soomaaliya ee Faransiiska injineer Maxamed Cabdiraxmaan Axmed waxaan leeyahay ku soo dhawow injineer soo dhawow وويل دنيرة شرف أي نوت هاي قيمة المدرسة كسفارة وويل دنيرة يلوجوه دنيرة دنيا فرصة سيناء دي ونحسن هاي بسم الله الرحمن الرحيم واحد سلامة يا أمد الصومالية ومشى سكوت مد منصب كستو إلى هو مشى كوفة السيتات الكستة سيدو كله وحن لا جاليد الصومالية مشى سكوت مد دمانتد حفلة سوق مقابسين سيد شرفت على يا سوق مقابسين سفارة الصومالية ونيجي مع علني سا مركز تونا ونيجرب تاجنتاي حلقة وقت دنبا يوجوديا جلسين هو يوينك دمان كل شيء كله دونا مش سكول ماتي معنا يا ولا ريال منصور ويننا مدحويننا الله قرب قالوا شغل علوس وهايو هرن وسوا هاي وكبير أنا هرو وسوا الشقين مدبّدًا وحن رجعنا إن شاء الله كيكو قول استينو نقضوا هوش الله إدمدي سيدو كله وحاول كل يسوعها مدحوينها مركان دنبه Soomaali isjecel oo nabad ah duunadana heshiis la ah iyo nabad ah marka waxaan rajaynaynaa insha Allah inay sidaas noogu dhimaato waana xilli dambe safaaradda markasta way garab taagan tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Faransa walaalayaal markale waxaan leenahay madaxweynaha Soomaaliyeed madaxweyne soo dhawow xilkan Allah kula garab galo waana maasantiin وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته